Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan muuqaalkan uga hadlaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay jimicsiga la joogteeyo ama waxa afka qalaad lagu yaqaano regular physical activity. Waxaan qaadan doonaa ilaa iyo 5 faa'iido oo ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee caafimaad ee uu ku leeyahay in aad sameysaa jimicsi joogto ah oo ah mid maalinle ah ama usbuucle ah. Waxaanan usoo qaadan doonaa 5taasi qodob mid mid, annaga oo mid waliba isdul taagi doona. Haddii aan ku bilowno qodobka ugu horeeyo, waxa uu noqonayaa jimicsigu wuxuu kaa caawiyaa in aad iska riddo cayilka ama buurnida ku saaran. Cilmi baarisyo la sameeyay oo caafimaad ayaa waxa ay xaqiijinayaan in jimicsiga la joogteeyo uu keeno in qofka uu cayilkiisa noqdo mid kontorolan amaba uusan yeelan buurni xad dhaaf ah oo keensan karto haliso caafimaad iyo in ay ku dhacaan cudurro. Waxaana la sheegaa in cayilku uu aad xiriir ula leeyahay fadhiga faraha badan iyo inaadan sameynin wax jimicsi ama dhaqdhaqaaq jireed ah. Marka aan qiimeyno isticmaalka jirkeenu u isticmaalo guud ahaan, tamarta soo gashaahi waxaa loo kala qaybin karaa ilaa iyo 3 qaybood. Qaybta ugu horeysa ayaa waxa ay tahay waxa uu jirka tamarta u isticmaalaa in uu u adeegsado joogteynta shaqooyinka jirkeena uu u baahan yahay ee ay qabtaan xubnaha loo yaqaano vital organska ee muhiimka ah sida garaaca wadnaha iyo neefsashada. Qaybta labaad ee tamarta ayaa jirkeenu wuxuu u isticmaalaa waxa loo yaqaano digestion-ka ama burburinta cunnada iyo dheefshiidkooda. Waxaana soo harayso qaybta saddexaad oo aan u baahannahay inaan isweydiino. Qaybtaas waxaa loo adeegsadaa physical activity ama dhaqdhaqaaqa jireed ee jirkeenu uu sameynayo, kaasi oo isugu jiro kan physical activity-ga ku baxaya ee ah markaad gacanta kor u qaadayso, markaad madaxa leexinayso, markaad wax soo qabsanayso ama dhaqdhaqaaq kasta ee jirkaagu uu sameeyo. Waxaana meeshaasi soo hoosgelaya haddii aad sameysid jimicsi in meeshaasi uu ku baxayo energy fara badan ama tamar fara badan, taasi oo jirkaaga uusan u baahnayn loona keedin lahaa qaab cadiin ama faatis ah oo aanan ku fiicnayn. Sidaas daraaddeed ayaa waxaa qodobkani isu dul taagnay in cayilka uu yahay wax halis ah, isla markaana haddii aad sameyso jimicsi joogto ah aad la diriri karto. Haddii aan u gudubno qodobka labaad oo ah faa'iidada labaad ee aad ka dhaxli karto jimicsiga joogtada ah ayaa waxa uu noqonayaa jimicsigu waxa uu faa'iido weyn u leeyahay caafimaadka maskaxda iyo xusuusta. Sida aan ognahay, marka qofka uu sameeyo jimicsi, waxaa kor u qaadma garaaca wadnaha, waxaana taasi ka dhashay in dhiig aad u badan uu gaarayo maskaxda amaba blood flow-ga ama qulqulka dhiigga ee maskaxda uu kordho. Taasi waxa ay keensataa in maskaxdu dhiig badan hesho, shaqadeedana kor u kacdo. Waxaana ka dhalanaya in xusuusta iyo caafimaadka maskaxduba ay kor u kacaan. Waxaa si qaas ah la isu dul taagaa qayb maskaxdeena ka mid ah oo loo yaqaano hippocampus. Qaybtaasi waxa ay qaabilsan tahay xusuusta iyo barashada. Markastaahi oo qofka jimicsi sameeyo, waxaa la arkaa in qaybtaasi size-keedu uu isbedelo iyada oo weynaata, isla mar ahaantaana awooddeedu ay kor u kacdo. Waxaa kale oo xusuus mudan in meeshan aan ku xusnaayna ay qasab tahay in jimicsigu muhiim u yahay dadka waaweyn, uuna ka hortago cudurro fara badan oo ay ugu waaweyn yihiin cudurrada lala xiriiriyo asaasiga sida Alzheimer's disease iyo cudurro kale oo xiriir la leh cudurrada dhimirka sida cudurka dhimirka ku dhaca loo yaqaano schizophrenia. Haddii aan u gudubno qodobka saddexaad, waxa uu jimicsigu muhiim u yahay in uu ka hortago cudurrada lala noolaado ee loo yaqaano chronic diseases sida sonkorowga, diabetic mellitus amaba cudurka dhiig karka hypertension ama cudurka faliga ee loo yaqaano stroke-ga
iyo cudurrada kelyaha fariisiya ee waqtiga dheer lala noolaado ee loo yaqaano chronic kidney diseases. Waxaa la sheegaa marka qodobkaasi laga hadlayo in jimicsigaahi uu badiyo waxa loo yaqaano insulin sensitivity. Insulintu waa waxa keena in sokorta ka imaata cunnooyinka aan cunnaa unugyadeena lagu xareeyo, waana midda ka hallowda amaba ay wax gaaraan qofka marka sokor ku dhacdo. Haddii aad maqasho qofkaasi waxaa ku dhacay macaan, macnaheedu waxa ay tahay waxa aan u shaqaynaynin maaddada insulinta. Sidaas darteed, jimicsigu waxa uu kor u qaadaa shaqada maaddada insulinta, isaga oo keena in unugyadu ay si wacan u soo dhoweeyaan oo ay ugu dhegto receptorskeedii, taas oo keensata in aad ka badbaaddo cudurka sonkorowga ama macaanka. Sidoo kaleeto, waxa uu keenaa jimicsigu in hoos loo dhigo cadaadiska dhiigga ama blood pressure-ka, taas oo kor u qaadaysa caafimaadka wadnaha, kana hortagaysa inuu kugu dhaco cudurka loo yaqaano dhiig karka. Ugu dambeyn, wuxuu jimicsigu yareeyaa dufanka saliidda ah ee ku jira dhiiggeena ee loo yaqaano kolestaroolka, taas oo lafteedu aad ku saacidayso marka ay timaado ka hortagga cudurrada wadnaha iyo xididadiisa ku dhaca. Haddii aan intaas uga gudubno qodobka saddexaad, waxaan u gudbaynaa qodobka afaraad oo ah jimicsigu waxa uu keenaa hurdo. Hurdo waa run. Hurdadu waxay timaadaa marka jirku daalo, maskaxduna daasho. Exercise-ka ama jimicsigu waxa uu keenaa labadaba. Waa midda koowaade, marka aad jimicsi samaysahay, jirkaaga wuxuu isticmaalayaa tamar badan, waa uuna daalayaa. Waa midda labaade, waxa uu keenayaa in jirkaagu uu yeesho temperature badan. Temperature-kaas faraha badan wuxuu u keenayaa jirku inuu dareemo kuleyl badan, wuxuuna u baahnaanayaa inuu galo relaxing amaba dabacsanaan inuu helo. Hurdo ayaana imaanaysa. Sidaa daraaddeed, waxaa lagu taliyaa dadka hurdo la'aanta qaba amaba waxa loo yaqaano insomnia in ay u baahan yihiin inay sameeyaan jimicsi joogto ah, kaa oo keensanaya in qofku hurdo. Ugu dambeysna, qodobka ugu dambeeya ee shanaad waxa uu noqonayaa jimicsiga joogtada ah waxa uu hagaajiyaa mood-kaaga, farxad, murug, culeysyo iyo wax kasta oo qofka ka soo muuqanayahay waxa ay ku xiran yihiin hormones amaba dheecaannada jirkeena. Sidaa daraaddeed, jimicsiga oo aad joogtaysaa wuxuu keenaa in uu saameyn xoog leh ku yeesho isbedbeddelka dheecaannada jirkeena, taasina ay keento in uu ka hor istaago cudurro fara badan sida depression-ka iyo walwalka. Waxaan intaasi kusoo koobaynaa muuqaalkeennii maanta oo aan uga hadlaynay shanta faa'iido ee uu leeyahay jimicsiga la joogteeyo. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.